وانا ذي كل يريقل ليا وانا فيليا إمي كباينا سميسان دراسدو يا علم بارسيو كلا دوان روبك يا رحمة إلهي الشباب عركة وككينا بدأ يبرق بس يسكو ميدا يقدار برق عما دول كسيه waxay ka soo saaraan nabaad iyo dog xataa hadii ay ciidu qallasho balse biyaha roobka ee Ilaahay cirka ka keena biyaha badda dhanaan waxba kama bedelaan adigana noloshaada cid kale waxba ka bedeli mayso hadaan aqoontu ka bedelin adnaana isbedelin hadaad imika xaflada roos qabato oo ka qayb gasho soo qiyaasi kartaan dareenka farxadda leh ee reynta leh ee qusulka leh ee qofka ciyaarka leh ee xafladda aroosku ay wadato haddaad si aas ama geeri tagto waa garan kartaa in shucuurtaadu taa ka duwan tahay war sidii xafladda aroosku ku xasuusinayso dhalaalka iyo hawooyinka nolosha aaskuna ku xasuusinayo in aakhira jirto noolana dhintay yahay adigana maalin maalmaha kamid ah wadku kugu soo xaadirayo aqoonta ku xasuusiso in dalkaaga iyo dadkaagu kamid yihiin dunida saddexaad oo dama adiguna iftiin iyo tooshiye naldaaraad u tahay qof kasta oo xurriyadda u halgama si uu xurriyadu ugu noolaado dhimasho u badheera qof kasta oo nabadgelyo u halgamaana si uu nabadgelyo ugu noolaado naftu u huraa qof kasta oo nolol wanaagsan u halgamaana si uu nolol wanaagsan ugu noolaado waxbuu u bartaa war waa su'aal waxa baranayso iyo cilmiga aqoonta aad baranayso ma waxaad u baranaysaa kaliya inaad ku shaqaysato mise waxaad u baranaysaa in lagugu yeedho hebel waa jaamici mise waxaad u baranaysaa in aqoontaasi dadkaaga iyo dalkaaga wax ku soo biiriso saddexdaa jaanisba haddaad wax u baranaysaan saddexdiiba wada haysaan haddaad wax u baranayso in hebel waa jaamici iyo waa aqoonyahan lagugu yeedho tuulada yaraad ka timid iyo magaalada aad joogto maqaaxiyaha ku yaalla subax hore ku soo kala tay dheer iyo faylna soo qaado dadkuba way ku odhan haddaad se wax u baranayso aqoonta baratay inay noqoto mid ka bedesho wax dadkaaga iyo dalkaaga iyo naftaada waa kartaa adayna kugu xirantay haddaad waxse u baranayso inaad ku shaqaysato waayi maysid hay'ad yar oo aad ka howlgasho oo report kulba 4 beesha ku dirtood ku dhimadoobato qof aqoonyahana oo PhD ama master sita ama degree sita oo waxba ikhtiraacin oo waxba soo kordhinayn oo waxba soo biirinaynin waxba kama duwana akhristo wanaagsan aqoonta baratay ilmaade reeyal waxa abuurto oo waxa ikhtiraacdo warninkii leedkan inoo iftiimay sameeyay 999 jeer ayuu ku guul daraystay isagoo confuse oo meel fadhiya dad badan ku soo xoomeen waxay weydiiyeen waxa ku dhacay wuxuu ku yiri markii 999 baan ku guul daraystay dadkii way la yaabeen war shaqadii bay ku dhaanay timo weynaani wuxuu ku yiri ma khasaarin waayo waxaan bartay 999 hab oo laambadu aanay ku bixin marka qofkay ku xiran tahay waxa uu doonayo iyo waxa uu yahay inaad noqoto qof aan waxba isku dayin waxba soo biirin waxba soo kordhin ama aad noqoto qof ku xisaabtama qof kale noloshiisa iyo mustaqbalkiisa iyo quruxdiisa iyo hantidiisa waxa ka muhiimsan in noqoto qof isaga lagu xisaabtamo oo maxaa laga xisaabtamaya xirfadiisa lagu xisaabtamaya oo aqoontiisa lagu xisaabtamaya oo kartidiisa lagu xisaabtamaya umana baahnid halka taagan tahay iyo heerka joogto inaad ku qanacsanaato waxaad u baahan tahay halka tiigsanaysaa inay ku qorsheysnaato si hadafkaaga iyo himiladaada aad uga madhadhalisana waa inaad la timaadaa adkaysi iyo dulqaad iyo samir noqo qofka aad rabto inaad noqoto qofka aad rabto inaad noqoto wax kastoo lagu sheegayna intaana sii sheegin hubso inaad xubsan weydaa shakhsiyadaada waxyaabaha dilayay kow ka tahay war waxaanad garanayn haddii lagu weydiiyo oo aad tiraahdo waan garanayaa ma waayaysid
qof soo dedejiya fashilkaaga laakiin waxaanad garanayn marka aad tidhaahdo ma garanayo ma weydid qofkuu sheega yaan dulqaadku kaa dhigin damiirku meed yahay fudaydkuna adoo dagan magacaaga yuu dilin ha yeeshee duntaadiyo inaad tahay qof daacada adigoon ku daalayn dadka kale ka dhaadhici dabcigaagu kaa tahay ha ku sheego dabadaa noqo qof wanaagsan balse wakhti badan ha ku lumin inaad dadka ka dhaadhicisa inaad tahay qof wanaagsan hana sugin hadeed kuu soo baxday ama kuu dhalatay inay kaaga wanaagsanaato ta kuu dhacday haddaanad shalay sidaad ahayd maanta beddelin berrina sidii unbaad noqonaysaa qof kastaana wax kastoo uu jecel yahay ma helo balse wax kastoo uu ku dadaalo wuu helaa ha ku mashquulin tagtada si aanad uga mashquulin timaadada xaaladuhu way adkaan karaan duruufuhu way qallafsanaan karaan waxbaa si kaa noqon karaa hadday maalintu kugu xun tahay macnaheedu ma aha inay noloshu kugu xun tahay